qiimeyn uu sameeyey jaraa'id ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay tobanka jilaa ee ugu taajirsan, waxaana qiimeyntan kaalinta koowaad kaga jira shacabtaroolaha reer Mareykan Jerry Seinfeld, kaasoo asal ahaan ay iska dhaleen aabbe iyo hooyo Siiriyaan ah, Yahuudna ah. Jerry Seinfeld ayaa inta badan wuxuu alifaa musalsalada shacabtarada ah, waxaana ugu caansan musalsalka uu asaga iskugu magac daray ee Seinfeld. Jilaagan ayaa lacagta uu haysto waxaa lagu sheegay $820 milyan. Sidoo kale waxaa qiimeyntan kaalinta labaad kaga jira jilaaga reer Hindi ee Shah Rukh Khan, waxaana lacagta uu haysto lagu sheegay $600 milyan. Shah Rukh Khan ayaa lacagtan aadka u faraha badan ay ka dhigtay inuu yahay milyaneer iyo weliba jilaaga labaad ee dunida ugu hantida badan, asagoo lacagahan ka sameeyey jelitaanka, telefishinada iyo weliba koox cricket ah. Wuxuuna Shah Rukh Khan sameeyey ilaa 50 filin oo Bollywood ah, iyadoo filimadiis ay sanad waliba ka muuqdaan tiyaatarooyinka caalamka. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira aktarka reer Mareykan ee Tom Cruise, waxaana lacagta uu haysto lagu sheegay $480 milyan. Kaalinta afaraad waxaa ku wada jira Johnny Depp iyo Tyler Perry, waxaana hantidooda lagu sheegay inay haystaan $450 milyan. Ugu dambeyn, waxaa qiimeyntan sidoo kale lagu xusay aktarada kale ah Jack Nicholson iyo Tom Hanks.